الله تعالى وبركاته كلنا هبون هنتي بداوديال halkani waa YouTube channelkeena Bidaan Media Production hadda wadaawada waxaan saaka anaga halwadeenada Bidaan Media Production aan wax hawlgalay sidaan idinka raali gelin anagoo in bilownay barnaamij la yiraahdo yaa noqon kara barnaamijkan oo ah mid saxana ah waan kaga hadli doonaa waxyaabo fara badan ayaa waxaan saaka aynu hadaba soo qaadan doonaa xubinta la magac baxday yaa noqon kara heesa haddaba talo heesaagan doonayna ma heesaagii hore mid u dhigma mise heesaaga kuwii dhexe mise kuwan hadda dambe daawadayaal idinka ayaa nala eegi doona daawasho wanaagsan imika waxaan hor taaganahay inaan kan uu sheegi doona magaciisa saddexan waa magaca saddexan magacayga waxa la yiraahdaa Cabdicasiis Jaal Xasan Cabdicasiis waxaan ku weydiinaa su'aal ah yaa noqon kara heesaa Cabdicasiis ma isku dayaan fanaan noqoto ama heesaa noqoto يو بري أسوي فقيد أيه يلا ترى أظن ببلين ورسكيرتي هسا مركه هراء هسا قدّي وقف عد بعاره ضد عد كيس يدا الموسيقى الله تطلع وحكي له القدر يعد كيس ضد كلام جاي تاي يمكن حلوق له ضد كميكس لا صبريه ورجع قف كهسا قال له قبل هسا لقطه ويمركب هو هسا عد كيس ودقيقة عد معقول اللي يهرد يسكره كاسا لو كرا فلان وطلع عد كم من لو ذكرت واليو وتشي أصلا أنا ما قديش بك ما حسستي أنت كذا بك وياي وحال ولا هسوي اللي بك ولا اسكف ها marka waxa ku weefnaa waxa noqon kara ninka codkiisaan lagu darin mixer laakiin codkiisu macaan marka ninka safina u taqaan absolutely ha waa marka uu kaligi u heesayay codkiisa qoro ku heesayo uu codkaasi yahay cod deel la qaadanayo oo saasoo filay ku yahay qof codkiisa la qaato fanaaniintii hore iyo kuwa hadda maxay kala duwan yihiin ilaa waxa kala duwan yihiin fanaaniintii hore xilligooda mixer kale ma jirin mid kale oo spot bay ku heesi jireen stage ayuu codkiisu imika nimanka waxa loo daaraa fanaaniinta mara laga warhaye dadka yar boog bilay baag waxa loo daaraa oo heesto baxaysa ayaa afar raqaatiyaab galfoka wada laakiin sameeyayso heesto already heesto duubanta bisi baa soo bari wala daaraya marka filal deeba filal la saagaji oo fanaan marka teknolojiyada loo saaro waa filal teknolojiyadu ay keentay baa filal codkiisu karay filal teknolojiyadu keentay aad ma walaalo imikana waxa hor taagan inaan koob inoo sheegi doono magaciisa saddexan waa magacaaga saddexan Xamse Maxamuud Xamse Maxamuud waxa ku soo dhawaataa barnaamijka yaa noqon kara heesaa bal Xamse talow yaa noqon kara heesaa waxa noqon kara qof murtile oo aad qof asturan oo aan ahayn fanku imika oo xumaaday kastoo fanku xumaaday oo hablo wada qaaqaawan iyo dad wada qaaqaawan noqday laakiin si fanikii horun buu ahaa qofku waa inuu ahaadaa qof naftiisa ku kalsoon uu baa noqon kara heesa adigu Xamse uma isku dayday inaba inaad noqoto heesa wallahi haddaan isku dayla sida nimka loo yeesay umaanaysay baadoo nala wadaaga codkaaga bal Xamse maya imka codkayga halkan kama soo tabi karin laakiin mar kale insha Allah in reejay soo tabi aad ma santaa imikana waxa hor taaganay inaan kan oo inoo sheegi doona ma nila wadaagi doona magaciisa saddexan Shacab Abdullah Cashuur Shacab Abdullah Cashuur walaal ku soo barnaamijka yaa noqon kara heesa وندوا ولا واحد نقول كرقف فنان ولا صح فنان مركز نوعية طلو فنان هذا قد عد كيس تشابيه عد كيس مقرن ساب لمس تشابيه صح هيا نقول كرا ولا طلو جامع فنان ننتي هوريك وهذا محو كلا دوين waxay kala duwan yihiin kuwii hore waxay qaadi jireen imanka de kuwan muusiga loo qaraacaya ma garanaysa kuwana waxay qaadi jireen de heeso waxaan ku wuri ayagu de codkooda ku qaadi jireen marka oo hore loo soo duubay inoo ma isku day adigu yaan noqoto heesa ma isku mid diin isku mid day doontina miya insha Allah ismaliya isku day ha aad ma santaa kana in ka bay hor taagan oo magaciisa nila wadaagi doona waa magacaaga waa Shaafici Shaafici waxaan doonayaa su'aalaha aan ku weydiiyo yaa noqon kara heesa walaal heesa waxa noqon kara qof kasta oo khibrad u leh af Soomaaliga ama la jiray si fiican u yaqaan af Soomaaliga Soomaaligu qaybo badan buu kala leeyahay suugaanta oo kale habdhaqanka oo kale ninkaas oo kale la oran karaa uu ku suntan yahay ama uu noqon karaa heesa talow wadaan ku weydiiyo wax aqoon miyaa looga baahan yahay fanaanka ها ولا dabeecado badan ayaa looga baahan yahay fanaanka waxa lagu xulaa criteria wax la yiraahdo
kriteeriyadaas haddii lagu garto fanaanka ama aftahanimo oo kale inuu noqdo nin aftahana inuu yahay oo kale ama nin cod macaan inuu yahay oo kale waxyaalahaas oo dhan baa lagu dooran karaa wala fanaanka. maxaa ugu horeeya fanaanka lagu qiimeeyaa? waxa kaliya lagu qiimeeyaa waxa weeye waa talkative inuu yahay, inuu si fiican hadalka u yaqaano oo heesaha iyo wax kastoo loo dhiibay inuu si fiican isugu dubaridi karo. adigu ma isku daynaba inaad noqoto fanaan ama fanaan qarsoon ha ahaado mid bulshada ka dhexeeya ha ahaade? walaal may weli iskuma dayn, laakiin insha Allah waa ku rajo qabaa insha Allah inaan noqdo fanaan haddii Ilaahay ka dhigo. baltolo codkaaga haddaad la wadaagi lahayd oo hees oo imika hore loo qaaday aad ku luuqeyn lahayd? wallaahi horta heesuhu waa fara badan yihiin, heeso badan baa hore loo qaaday laakiin waxyaalo badan baan ka xasuustaa heesaha hore loo qaaday. waxaa ka mid ah heestan tidhaaha adduunyadu qarribana qaxaar iyo dhibaatiyo qalala wallaahi heestani waa hees xikmad badan xambaarsan, waxyaalo badanna ka hadlayso reality. aad maasanta waa shaafici. imikana waxaa ila garabkayga taagan ninkan oo magaciisa inoo sheegi doona. علي أحمد عقيه. cali axmed cigo waxaan doonayaa inaad su-aashan aad naga jawaabto ayaa noqon kara heesaa. waxaa noqon karaa waa xikmad ilaahay bixiyo horta heesaagu iyo gabyaaguba markaa dee ilaahay baa bixiya heesaaga iyo gabyaaga waa aftaan in la yidhaahdo dee magaraysa aqoontiisa noqon karaa. oo talo fanaaniintii hore xilligaaga iyo fanaaniintii hadda adoo labadaba u soo joogay talo maxay kala duwan yihiin? waxay ku kala duwan yihiin xikmaddii ma kooxda la soo guurtay kuwaas xikmadda ayay lahaayeen xikmad leh oo Soomaaliya lagu diiwaysoo cilmi ku fadhiyaan ayaa hadda kuwana abay mooy kara habar ba qaba laga hadlayaa ayaa iska dhigaan. oo talo adigu ma isku daray cali inaba inaad heesaan noqon? ma ilaa oo mid qarsoon oo markay xaaxaas cadhooto kale maya hees isma ma jecli. fanaaniintii baa taageeri jirtay berigaa xilligaa? dee fanaaniinta waxaan taageeri jiray ina mooge maxamed axmed kulo heesiis maxaa ka xasuustaynaa? waa xasuustaa. waxaa ka mid ah heestii ardayda uu oran jiray maxay ahayd dee soo qabo dugsiga marka ay ku jiraan dadweynaha hogaaminaa xasaawinaa dadtoona isagu lahayn ya kuwaa heesaasu dee waa iga guureen markaa heesaa laakiin waxaan ku jeclaa hooyoy aad maasanta. daawadaal waxaan intaan kusoo gabagabanaynaa barnaamijkeena taxana ahaa ee ah yaa noqon kara. barnaamijka aanu saaka ku soo qaadanay xubin ka mid ah xubnaha yaa noqon kara, xubintaas oo ahayd yaa noqon kara heesa. daawadaal waxaa si toos ah nagula socon doontaan Bidhaan Media Production. waa anigoo Fahad Shakiib Siciid iyo waliba bahda Bidhaan Media oo ilaa sidaa iyo nabadgelyo.